waan idin salaamay saaxiibayaal. Magacaygu waa Nuur Ibraahim Cali. Maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo tayniska koowaad ee ka mid ah taynisyada 12 ee luqadda Ingiriiska ay leedahay. Present continuous tense ayaa la yiraahdaa, waana midka koowaad. Present continuous tense waxaa loo isticmaalaa falka isla marka hadalka uu dhacayo isna dhacayo, ama present continuous tense is used for an action that is happening at the time of speaking. waayahay marka intaan haddaan macnayo waxa weeye present continuous tense is used waxaa loo isticmaalaa for an action fal that is happening kaasoo dhacayo at the time of speaking, and timeka ama waqtiga hadalka. qaacido ayuu leeyahay ama formulation ama formula ayuu leeyahay. A subject plus SMR plus verb plus ing plus subject y. sameeye ayaa la subjectiga, is iyo m iyo r waxaa la isku dhahaa ficil kaabiyaal ama aan iraahdo auxiliary verbs plus loo geeyo verb oo means main verb ficilka weyn plus ing oo loo geeyo ing-da oo waxa markaas dhacay tilmaamayso plus subject oo loo geeyo midka wax lagu sameynayo. You, they and we take waxay qaataan, I qaataan, he, she and he take waxay qaataan, is qaataan, and I kaligeed take waxay qaataan ama ay qaataa. marka intaan waxa weeye 7 pronouns ayaa waxa weeye afartan waxay qaataan, saddexdan waxay qaataan r, saddexdan waxay qaataan is, tan kaligeed waxay qaataan m. waayahay affirmative aan leenahay tan ama statement hadal toosan qaabka present continuous uu ku imaanayo. You are listening to the radio, waxaad dhegeysanaysaa raadiyaha. They are cooking lunch, waxay karinayaan qado. She's driving a bus, waxay kaxaynaysaa bus. I'm studying Arabic, waxaan baranayaa yiraahdee maadada Carabiga. Okay, questions markaan ka dhigayo marka questions su'aalo markaan ka dhigayo. Are you listening to radio? Raadiyaha ma dhegeysanaysaa? Are they cooking lunch? qadada miyay karinayaan? Is she driving bus? bus miyay kaxaynaysaa? I'm not driving. marka tan nodana iska saaraynaa, waa very simple waaye. Okay, marka inta waxaan leeyahay not. Okay, marka meeshan waxaan leenahay am I driving, am I studying Arabic? Arabic miyaan baranayaa? Negative ka dhig marka meeshan diidmo waaye. You are not listening to the radio, raadiyaha ma dhegeysanaysid. They are not cooking lunch, qada ma karinayaan. She is not driving a bus, bus ma wadayso, eeda inta waa laga reebayaa. I'm not driving a bus, aniguna bus ma kaxaynayo. Question with negative, su'aalo diidmo la isu geeyay. I'm not you listening to the radio, raadiyaha ma dhegeysanaysid miya? Are not way mention not no ma are not they cooking lunch, or aren't waa dhihi kartaa qada ma karinayaan miya? Is not she driving bus, ayadoo bus ma kaxaynaysa miya? I'm not marka I'm not I studying Arabic, aniga Carabiga ma baranayo miya? waxa kale jira marka some verbs of continuous among these are as follows. waxaa jira verbs oo aan lahayn ing aan qaadanaynin oo continuous aan ahayn. so marka waxaan leenahay meeshani see, hear, test, feel, want, love, hate, like, dislike, desire, forgive, dignify, think, keep, possess, contain, consist, appear, seem, recollect, prefer, guess, doubt, believe. waayahay meeshan waxaa waye marka kan see arkid waaye, hear maqlid waaye, test dhadhamin, feel dareemid, want rabid waaye, love jeclaansho, hate necbaansho, like jeclaansho ama ka helid, dislike necbaansho, desire rabitaan, forgive cafin, dignify waxaa waye sharfid waaye, think waxaa waye u maleyn aan dhahay fikrid waaye, keep waxaa waye ilaalin, possess lahaansho, contain ka koobnaansho, consist jiritaan ama ka kooban labadu waa la dhihi karaa, appear muuqasho, seem muuqasho, recollect dib u aruurin, prefer doorbasho, gas qiyaasid, doubt way markan bidi laguma dhawaaqo, shaki waa ama ka shakin, belief remain way. aad iyo aad u mahadsantihiin. intaan kulmi doono xiisadan teeda xigta waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.